بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع maanta ka hadlayno waxa uu ku saabsan yahay الصبر عند الشدائد. sabirka uu qofku safro xilliga xaaladuhu ay ku adag yihiin. Rabbi subxaanahu wa tacaala kownkan noloshiisa waxa uu ka dhigay xaalado isbedbedelaya qofku mar uu barwaaqaysan yahay iyo mar la imtixaamayo. xaaladda qofku uu barwaaqaysan yahay ilaahay waxa ugu talagalay in qofku uu shukriyo, midda uu dhibaataysan yahay ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu safro. waa xadiiskii nebigu uu ku yidhi cajaban liamri lmu'min, waxaa yaab iskale arrinta qofka mu'minka ah, maxaa yeelay arrintiisa oo dhan waa khayr. walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min, arrintaasina uma sugnaan qofka mu'minka ah mooye. in asaabathu saraa'un shakara fakaana khayran lah, haddii barwaaqo asiibto waa uu ku safrayaa, khayr bayna u tahay. wain asaabathu daraa'un sabara fakaana khayran lah, haddii dhibaata asiibtana waa uu ku safrayaa, iyana khayr bay u tahay. sabirku luqa ahaan haddii aan tacriifkiisa u galo waxa weeye alxabsu walmancu, in nafta wax laga xabiso ama laga manciyo. istilaaxanna waxa weeyaan xabsu nafsi calaa taacati illaahi wa can macsiyatihi wa calaa aqdaarihi almu'limati duuna sakhatin aw jazacin. waa in nafta lagu sabirsiiyo oo lagu xabiso ilaahay daacadiisa, lagana xabiso ilaahay macsidiisa. sidoo kale nafta lagu samirsiiyo aqdaarta xanuujinaysa qadarka iyo imtixaanka, isagoon qofku aanu ka caroon kana argagixin. rabbi subxaanahu wa tacaala waxau qur'aan ku leeyahay suuratu lbaqara aayadda 153: yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bialsabri waasalaah ina allaha maca asaabiruun. duulka iimaanka laga helayo kaalmaysta sabir iyo salaad, ilaahay wuxuu macooda yahay kuwa safra. sabirka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood, waxaana ay kala yihiin: 1 alsabru calaa taacati illaah wa huwa athabaatu cala alcibaadati raqma almashaqati kaalmuxaafadati cala alsalaati waasiyaami wa biri lwaalidayn. waa in qofku cibaadada ku dul sugnaado uu ilaaliyo si kastoy ugu culus tahay. tusaale inuu salaadaha ilaaliyo waqtiyada adag ee qabowga ah, in uu soomo oo gaajada uu ku safro. qodobka labaad waxa weeye oo aqsaamu sawm ka mid ah alsabru can macsiyati illaahi, qofku inuu ka safro ilaahay macsidiisa oo iska ilaaliyo. nafteennu waa mid shahwaaniyada oo mar walba jecel xumaanta, sidaa darteed qofku waxa naftiisu jeceshahay inuu ka joogsado yana waa mid ka mid aqsaamta sabirka. wa huwa tarku alxaraami raqma wujuudi shahwati aw alqudrati calayh, waa in qofku uu xaaraanta ka tago si kasta oo uu awoodo ama uu samayn karo. qodobka saddexaad ee aqsaamu sabri ka mid waxa weeye alsabru calaa aqdaari illaahi almu'lima, qofku inuu ku safro aqdaarta ilaahay ee xanuujinaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau leeyahay wabashir asaabiriin, waxaad u bishaaraysaa kuwa safra, aladiina kuwaasoo idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun, haddii ay asiibto dhibaato yidhaahdaa annagu ilaahay baan xaggiisa ka nimi, xaggiisa ayaanuna u laabanaynaa. fadliga sabirka laga helayo ama qofka sabraa uu helayaa waxaa ka mid a maciyatullaahi lisaabiriina, in qofku ilaahay uu miciisa ahaado. sababtoo ilahay qur-aanka waxaa ku yidhi ina allaha maca asaabiriin, ilaahay waxa uu la jiraa kuwa safra. qodobka labaad waxa weeye alajru bigayri xisaabin, in ajar tiro badan oo aan qofka loo xisaabinin in ilaahay uu siiyo. qur-aanka rabbi subxaanahu wa tacaala suuratu zumar aayadda 10 waxa uu ku yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab, ilaahay wuxuu u oofinayaa u gudayaa kuwa saabiriinta ajarkooda iyadoo aan loo xisaabinayn. qodobka saddexaad oo ka mida min fadaa'il sawm waxa weeye waa sababun lidukhuuli ljanna, wuxuu sabirku sabab u noqonayaa inaad jannada ku gasho. nabigu calaih slat slam xadiis waxa uu ku leeyahay wamaa ucطiya axadun cadaa'an khayran wa awsaca min asabri, ilaahay ma siiyo axad siismo ka khayr badan ama ka ballaaran sabirka. sidaa darteed waa shay aad u weyn. thamaraatu sabri, miraha ka dhalanaya qofku haddii uu sabro. cibaad allah, lisabri thimaarun cadiimatun fi dunya walaakhirati minha, qofka sabraa waxa uu helayaa miro tiro badan, waxaana ka mid ah tuma'niinatu lqalbi wa raaxatu nafsi, in qofka qalbigiisu dego, naftiisuna ay raaxaysato oo ay xasiloonaato. quwatu liimaani wathabaati, iimaankiisu inuu xoog yeesho oo uu sugnaado qofku marka uu sabro. takfiiru dunuubi wa rafci darajaati, in qofka dunuubtiisa ilaahay uu dhaafo maadaama uu saabir yahay, darajaadna uu sare ugu qaado sida ambiyada ilaahay uu sare ugu qaaday sida oo kale. naylu maxabat illaahi tacaala, in ilaahay maxabadiisa iyo kalgacalkiisa aad heshay markastoo sabirto. alfaraju bacda shiddati,
qofku inuu faraj heli doono aday kadib famaca alcusri yusra sababtoo culayska safadeed baa ka dambeeya sida ilaahay qur-aanka ku sheegay. waxaa jira qisooyin tiro badan oo sabirka waxa weeyaan tusaale looga dhigan karo. waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu imtixaamay ambiyadiisii, sidoo kale ummadihii hore dadkii saalixiinta oo la imtixaami jiray. waxaa tusaale aan usoo qaadan karaa nebi ayuub calayhi salaam oo in badan imtixaan waxa weeye caafimaadkiisa ku saabsan ilaahay uu imtixaamay, markii dambena waa uu sabray oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka waxa uu ku yidhi inuu ku ducaystay innii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin. markuu sanado badan dulqaadanaya ayaa waxa uu yidhi rabbiyow dhibaato ayaa itaabatay ama xanuun, adiga ayaa ah kuwa naxariista midka ugu naxariista badan. sidaa darteed rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku soo gebagabeeyey nicma alcabdu innahu awaab, waxaa nicmoobay addoonkaas isaga ah oo waxa weeyaan sabray. sidaa darteed waxaan tusaale usoo qaadan karaa oo kale nebi yuusuf calayhi salaam waxa uu u sabray calaa xasadi ikhwatihi wasijni wadulmi, xasadka ay walaalihii ay xasteen ay ku tuureen ceelka, xabsigii uu galay iyo dulmigii loo geystay, xitaa isagoo markii dambe casiis noqday oo boqor noqday ayaanu ka argoosan. waxaan tusaale usoo qaadan karaa sabirka nebiga calayhi salaatu wasalaam markii maka lagu dhibaateeyey ee la saaray ee uu daa'if tegey ee reer daa'if iyana ay nebiga dhibaateeyeen waxa weeyaan maliku jibriil iyo malagii buuruhu u yimaadeen oo maliku jibriil uu ku yidhi waxa weeyaan malagii buuraha ila socday abar maanta labada buurood ee hareeraha ka xiga maka iyo daa'if ayaa lagu daboolayaa. waxa uu yidhi maya, waxaan rajaynayaa kuwa dhabarkooda ku jira ee aan weli soo bixin in ay noqdaan kuwo ilaahay keliya caabuda oo aanu shariik samayn. maalmaha ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yimi mid ka mid ah saxaabada waxa uu ku yidhi rasuulka ilaahayow aad baa naloo dhibaateeyey, dhibaato aad u daran baa naloo geystay. nebigu waxa uu yidhi waxaad moodaa inaad degdegaysaan, sababtoo ah ummadihii idinka horreeyey ninka intii god loo qodo oo miishaar madaxa laga saaro halkaa dawaarka ah baa lagu kala bari jiray oo lagu kala jiri jiray. sidoo kale qaybtood waxaa loo soo qaadan jiray garfeed bir ka samaysan, kadib baa waxaa la kala siibi jiray waxa weeye cadkooda iyo laftooda ayaa la kala saari jiray. arrintaasina kama celin jirin diintooda oo ay kama hor istaagi jirin. sidaa darteed sabirku waa shay aad u qaaliya. waxaa rajaynaya ilaahi subxaanahu watacaala uu naga dhigo kuwo mar walba saabiriina oo adduunkan dulqaata, sababtoo adduunyadu waa sagaal uma tuganowdo. hadduu qofku sabirkoodi waayana iyo iimaanna waxa weeyaan isagun baa wereeray. soomaalidana waxay tidhaahdaa saddex baa lagu kabaa, waxaana ka mid ahaa iimaankaaga oo yar waxa weeye waxaa lagu kabaa qanaaco. aad baa u mahadsantihiin.